بسم الله الرحمن الرحيم سيدا أركيسان وحالتان جوغا قار كميدا حبنيه عاون قرن هوري إلو سعودين وحبنيه لوغو تلقلين عاويان عيارتويدا دادير دانيرada xulka qaranka Soomaaliyeed dadweynaha ciyaaraha ka qayb galaya wadanka Burundi sida dadkiin nagala qayb galaya oo tabruucada ka qayb galaya caawintooda dad kala duwan siyaasiyiin qaybaha bulshada culimada inta bale maanta sida arkaysan aan joogno Ismaaciil Sheekh siyaasi daayar wuxuu diyaar u yahay inuu dhinaciisa walaalihiisa caawin qaranka Soomaaliyeed ku caawiyo lacag dollar ay gacanta ku hayaan nuur soo dhaw caawin qaran waa dhawahay horta guddiga warbaahinta uu istaagay caawimaada qaran aad u mahadsan yihiin oo fiican ay wadaan waana arrin loo baahnaa in la dhiirigeliyo haddii maanta warbaahintu waa awoodda wadanka ka jirto marka haddii dalkii ay u istaageen sidii dhalinyaradu u dhiirigelin lahaayeen mudnaanta koobaad ayaga iskale sababtoo ah oo barnaamijkan soo alifay si ay moraalka dhalinyaradaas kor ugu qaadi lahaayeen ayna waxaa maanta jeclaystay inaan guddiga ku wareejiyo lacag aan badnaynin ka badan aan jeclaa inaan ku wareejiyo lacagta tiradeeda waxaa ii sheegi doona gudoomiyaha guddiga xubin ka mida guddiga aan ku wareejin doona agaasimaha raadiyo kulmiye burhaan diini faarax aan ku wareejin doona burhaan agaasima igala wareeg lacagta tiradeeda sida arkaysaan waa $500 oo dollarka Mareykanka ah oo Nuur Ismaaciil uu ku wareejiyay aniga burhaan diiniya oo xubinka ah guddiga caawin qaran ee wariyaasha ciyaartooyda caawinaya nuur aad u mahadsan tahay ajri xasanaad Allah kaasi shukran ma santii maadaama isku hawshaan waqti badan ay geeysan teemkan kamida macnaha si wadankiina maalkan ay sheeg ugu shaqeyn lahaydeen dhalinyarada u dhiirigelin lahaydeen dhalinyarada waa maanta dadka loo baahan yahay in wadanka mustaqbalka wax taraan haddana dhiirigelin maanta dhiirigelin loo sameeyo warbaahinta u istaagin birtu waxa imaanaya in kulamo kala haday tagaan niyad uu ku dhac marka hadii moraalka loo dhiso waxa hubaala in natiijo kale ay keeneen mid ka fiican ay keenin doonaan waa mahadsantiin